qofkaasna waxaa waaye my husbandkeyga waaye fahanti soonkaas soon ka horreeyey waa isla soo soonnay farxad waa isla soo iidnay laakiin uma malaynayo soonkaanayt inaan soo dhammaysanayn oo iidda asla gaari doono oh my god waykos anigoo seriouska gudaha u gelinin maxaa macnaha ma jeclaan lahayd hadda inaad soonkaan asla soontiin mise adiga kaa go'anta inaadan la soomin waxaan ilaahay aad iyo aad idin jeclahay my husbandkeyga iyo ciyaalkeyga weligan waan ii jeclaan doonaa laakiin waxaan rajeynaa iid kaloo iyo soonkan asal soomi doono insha allah aqabadadu ilaahay keenin insha allah goorma ayaad ugu dambaysay adoo reality u hadlaayo call your mom ina hooyada aw wacdid goorma ayaa kugu dambaysay waxaa igu dambaysay xalay muuqaalkan daawan doona dhammaantiin waa idin salaamnay waa anigoo ah Shankar Baba waxaan maanta ku suganahay High Street Jami Street in Soomaaliya especially Mogadishu ayaan hadda ku suganahay surwaada guys waxaan idin tusin doonaa magaalada qaabka ay ku leedahay bilicdeeda iyo quruxdeeda ayaan tusin doonaa sidoo kale halkan waxa ka daawan doontaan xamar inaysan xamartii hore ahayn xamar safe waaye baaba xaalka jabd waaye soonka ku jirnaa waa maalin 12aad caawa habeen 13aad waxaan soo baxnay magaalada inaan idin muujino view yar oo qurux socodkeena joogina saamiina nala socda welcome guys anaga iyo socodkeena waa New York ma jooga ya meesha Cape Town miya meesha New York miya meesha intee meesha waa family ah baba meesha Qaahiro miya waa family baba meesha xamar leel marooya kula jaamkan street kan magaalada quruxdan view u jeed abo xamar leel marooya kula ya welcome guys wili lisma gaar hadda waa dhownahay hadda bilaaw aanay muuqaalkeenu oo sii socon doona intaan ka badan waa mar doona meel walba oo qurux iyo bilic aqtaameena lugtu waa gelin doona dalaq waan idin tusinayna come on guys biralaha moshi ana madusna moshi muslimo karaday miskatalo wadigay mushay mu'mina kuwete muslimo karaday miskatalo wadigay mushay mu'mina kuwete
city guys kor ku soo xusneeda muuqaalkeenu maanta wuxuu ku saabsanaa inaan soo booqanay magaalada Few Town yar oo qurux badan ana sameyn doono dadkan aan waraysan doono bulshada maanta waxaa barnaamijkeeni nagala soo qayb gashay ama aan la kulanay the Jam Street the High Street in Muqdisho gabar runtii aad iyo aad qurux badan oo kamid ah dadka magaalada dhashii awlaad caasima kamid ah runtii waxaan ugu sheegtay magaceeda in la dhaho Shukri waxaan leenahay Shukri markoo soo dhow waa dhawahay waan ku faraxsanahay inaan waraysi idin qaadin maasha Allah soo dhawaaw aad iyo aad u mahadsantahay beejka naga daawanaysa waa Raja Film aniga oo idin daadinaya barnaamijkana waa Shankar Baba waxaan leenahay Shukri su'aasha ugu horeysa ku weydiin doona maanta waxay tahay Ramadaankan soonka hadda aad joogno soonkii ka horeeyay qof isla soonteen hadda misla soomaysi wallahi wajira qofkaasna waxa waay ma husbandkeyga waaye faante soonkaas oo koorey waa soo soonay farxad waa isla soo iidnay laakiin uu maleynay soonkaanay inaa soo dhameysanayn oo iida asla gaar doono oh my god waykos aligo serious ka gudaha oo galeenin maxaa macnaha ma jeclaan lahayd hadda inaa soonkaan asla soontiin mise adiga ka go'anta inaad la soomin maya waa jeclaan lahaa inaad soonkaas soo dhameysano weliba asla iido laakiin safar yar soo gala dartiisa ay suurtagelaynin faantay ana ku suurtageli weysay inaad soonkan la soontid waa ku xumaayay sidaas qurux badan hal iyo laba maxaa dhihi lahayd dadkaas maadaama aad soonkan aad la soomi doonin oo aad ka tegaysid maxaa dhihi lahayd hal iyo laba fariin dardaar waano gabay geerar maxaa dhihi lahayd oo jeclaan lahayd qalbiga ka go wallahi waxaa dhihi lahaa jeclaan lahay waa jeclaa inaad soonkaas la dhameysano weliba farxadda iida asla qaadano laakiin ma suurtagelin midaas waa ka xumahay waxaan ilaahay aad iyo aad idin jeclahay my husbandkeyga ciyaalkeyga weligan waan ii jeclaan doonaa laakiin waxaan rajeynaa iid kaloo iyo soonkana asal soomi doono insha Allah aqabadadu ilaahay keenin insha Allah oh my god soo kale Shukri waxay noo sheegtay inay tahay maamo Soomaaliyeed sanadkan aad ay ugu xuntaa inay la soomi way inay la ciidi weydo caruurteeda iyo saygeeda runtiina waa arin runtii aad iyo aad u xanuun badan oo qalbi taabasho dareenkeeda leh waxaan leenahay kuwa ka tagaysana dad wanaagsan kuwa u tagaysana dad wanaagsan Soomaalida geygooda u wanaagsan soo kale Shukri waxaan leenahay inaan ku weydiino the last question it is goorma ayaa ugu dambeysay adoo reality u hadlayo call your mom ina hooyada aw cadid goorma ayaa ugu dambeysay waxa ugu dambeysay xalay wada sheekaysanayeen maasha Allah hooyadii hadaan wicin markaste niyadeeda saafi ma noqonaysaba way igu soo dhaca qof ugu horeeya markasta igu soo dhaca ayadoo waaye markasta waxaan jeclahay inaan ogaado xaaladeeda walwalaan dareemaha hadaan la hadlin markasta waxaan jeclahay hooyadii inaan marka hore aan wareysto xaaladeeda iyo wixii ku soo kordhay fahmin oo marka halkaas hadaan ayada maanta aan la hadlin xataa waxaan la hadlaayo kale dadka u dhow kale sida walaalkay oo kaleeto marka hooyaday waa ka warqabaa maasha Allah aad aan u jeclahay oh my god waxay leedahay soo kaleeto in maamulteeda aad iyo aad u jeceshahay runtii waxaan fiir doonaa muuqaalkan inuu meel dheer gaari doono large of mom waxaan leenahay runtii waa maasantahay markii waad mar labaad waxaan ku weydiin doonaa maxaa raadaye maxaa jeclaan lahayd hooyo kulli muuqaalka faafi doonaa dad badan u gaari doonaa we have so very famous saadna caamuni laakiin waana nahay hadane infaanti marka hal iyo labo hooyo maxaa leedahay waxaa fariin u soo gudbinaya dhalinyarta maxaa lahaay gabdhaha marwooyinka sababtoo ah hooyo in la moogaan sababtoo ah waxa dareemi karo hooyo xanuunkeeda gabar oo kaliya dareemi karto ayada xanuunka iyo maxaa la sabarka wuxuu yahay iyo dhibaatada ilmaha koriskooda dhibka laga marayo ida ogaanayso fahmino marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarta marwooyinka nimanka xaasiska leh first one maxaa ka bilowdin hooyadiina xaaladeeda markasta inaad la socotiin aad ka duceysatiin wax walba iyadana iniga horeysa waaye jannadana lugeeda hoosteeda taala halaga faa'iideystaa dhihi lahaa oh my god sidoo kale muuqaalka wuxuu noqon doonaa samayn muuqaalada muuqaalka ugu dareenka badan runtii anigoo dhan khushuucay maxaa la dhigi jiray horta maxaa raada waa khushuucmay horta mid isku dhaxdaatay la dhigi jiray wallahi muuqaalka runtii aad iyo aad u faasantahay Shukri in yar oo sheeka qaraxad oo macaan badan ee qalbi taawashay suka dartay sidoo kale waxay ka hadashaa hadal main point aad iyo aad u muhiimsan inaan la iloobin hooyo marwooyinka brotherska sisterska inaan la iloobin hooyo mar walbana hooyo ay aato kow walku ma sitay sida quruxda badan ee aad noo dhageysateen come on guys hadda iyo muuqaalkeeni iyo qofka xiga let's go ama sitay Shukri thank you hey markaan iyo mar kale waana kana wali waa socnaa muuqaalkeeni wali waa u socdaa waxaan la kulannay wiil kamid ah dhalinyarta
ciyaalka xaafadda ama ciyaal xamar kaasoo ah dadka runaantii ku shaqaysta gaadiidka mootofeekomta ama mootada lama lugaaleedaas u taqaanaan runtii waxaan weli aan ku sugannahay the highest Jamie Street so waxaan wareysan doonaa asaga boos soo dhow baro waa dhawahay maasha Allah magaca Cabdiraxiim degmada soo jeeda wallaahi degmada hodan maasha Allah yarka wuxuu noo sheegay magaciisina Cabdiraxiim maasha Allah magac qurux badan isla in kasto aan akareenin magaciisa faani waa wadaga ma aan wadaga Cabdiraxiim daasad ya maasha Allah okay wuxuu sidoo kale sheegay inuu ka soo jeedo degmada hodan ka soo jeeda degmada hodanna waa degmada runtii ugu quruxda badan ama ay ku yaalaan goobaha ugu quruxda badan ee magaalada Muqdisho Cabdiraxiim daasad anka ku dhahay waa magac wadaga been ableeni let us go our question session aku saacadeena okay waxa kuleenahay elka soonkii ku horeeyay hadda soona ku jirnaa sino soonkii ku horeeyay oo ka horeeyay familku ku horeeyay aad booqatay waa jiraan sax waa jiraan asxaab aad booqdaan jirto asxaab familku kugu dheera booqatay nacam ma rajaynaysaa oo ma rabtaa in soonkan islaayigi aad booqatid ayaga iyo kuwa ka sii badanna booqdo rajaynaa insha Allah aad ma satahay waxa kale ku weydiinoonaa goorma ayaa kugu dambeysay dari call your mom ina hooyada awacdo ama alaadasho ma sha Allah hooyaniho alxamdulillah waa inoo shaa waa la jooga waa la noolahay hadeerta agteeda ka soo kaco oo ku soo anfuray ma sha Allah waxaan dhigi karnaa caalka wuxuu ahaa shakhsi aan la kulano shakhsiyada ugu nasiibka badnaa ama se ugu fiicnaa alxamdulillah hadii hooyada ay ku nooshahay waxaan ku leenahay dhowr hooyo oo ka duceyso jannadana waxay ku jirtaa cagaheeda that's we know oo quraankeena diinteena ay fartay badaas inta kale ee hooyo ka dhimatay waxaan leenahay hooyo ilaahay u naxariisto qabrigeeda Allah u waasiciyo nuur Allah u saaro jannatul firdawsna Allah ka waraabiyo ilaahay ka jeclaystay janna inuu geeyo umu waayeen ee qalbigaaga dagsan ku leenahay walaal inta hooyada ka dhimatay ayaa leenahay muuqaalka taaban doon let's go wuxuu noo sheegay in hooyadiisa hadeertaan uu la soo afuray oo ka imaaday haddana uu fiisi ama shaqadiisa howlihiisa shaqo sidiisa dheeligeeda ku jiro okay ma xasuusan kartaa ereyga kugu quruxda badnaa ee wiiga la soo dhaafay aad dhahday hooyo aan jeclaan lahayd hadda inaad ku celiso maadaama muuqaalkan uu faafi doono laga yaabaa inuu hooyo u gaaro hooyaday horta waa saaxiibkay waana qofka kaliya la saaxiib ahay mar walba waxaan iraadaa abaayo aan iraadaa mar booska abaaya gishtaa xataa saaxiib lahana ma sha Allah that is good ay maqli jiro Soomaalida dhahdo gabar iyo hooyadeed arintaas uga jir laakiin hadda waxa soo baxay in loo wiil iyo hooyadiis waa isku sir oo saaxiibo that's a good bro waalidkaaga marna saaxiibo noqotaan marna inay waalidku aadaan respect your parents as we respect our parents taasna waxay sheegi doonto our religion ma sha Allah good waa basata brotherkii waa anagu rajafilms.com iyo rajafilms shankar baba barnaamijkan u daadin doono waxaan ku leenahay waa maasan tahay nolow brotherkii ilaahay oo ku waayo nolosha ku socoto insha Allah thank you okay wali waxaan ku sugannahay isla barteennii walina waxaan wadnaa muqaaladeennii waxaan hadeertaan la kulannay wiil ka mid ah dhalinyarta ciyaalka xaafadda ama dhalinyarta Soomaaliyeed gaar ahaan waliba ciyaal xamar brotherkeyga it's not easy bro dadka media istaa la suganaa ala qadeynuna waa kulkulinoona brother let's go yarkan waxaan leenahay markooda soo dhaw magaca magacaada maxamed qadar ayaa la dhahayaa magaca runtii is so amazing the beautiful name waa istaa magac qurux badan waxaan ku leenahay maxamed qadar ku soo dhawow channelka Raja Films Production anigoo ah Shankar Baba daadinta barnaamijkan maxamed qadar waxaan jecelnahay inaan ka wareysano ama aan ku weydiino goorma ayaa kugu dambeysay in aad hooyo call phone wacdid maanta ugu dambeysay waca hooyo inaa wacdid oo la hadashid maanta kugu dambeysay are you sure for that ممتاز أرنتاس seriously ما أنت ما دام أمان أحسن نجح أنا إلهي أنا قريدين ما أنت sure وده أوكي مجرتا hooyo ina maanta isla hadasheen oo wacday erayga kuugu quruxda badan ee maanta hooyo aad dhahday ama aad jeclaan lahayd that you say your mom wuxuu yahay erey kilo ya masnaa erayga aad jeclaan lahayd ugu quruxda badan oo hooyo aad dhihi lahayd hooyo ku jeclahay inta adduunka ka dhiman inoo la wadiilay hooyo ku jeclahay hooyo I love you inta adduunka ka dhiman inoo la ha ilan hooyo ha